kulanti waxaan asxaabay kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa waxyaabaha wargeysyada caalamku ay ka qoreen saxada kubadda cagta goolkii koobaad ee xalay xulka Boortaqiiska oo weli la isku haysto Cristiano Ronaldo oo goolkii xalay ku doodaya iyo xiriirka Boortaqiiska oo arrinkani soo dhaxgalay khilaaf soo kala dhaxgalay xidigaha Belgiumka oo wareer dhexda u galay iyo waxaan eegi doonaa wararka suuqa oo shidan January suuqa oo hadda la sii balansanayo Manchester United iyo Chelsea oo suuqa sii galay waxbaan ka taaban doonaa suuqa muuqaalkeena inta bilaabin saaxiibayaal like saar siina share gareey asxaabadan ay u gaadho haday tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana fursaad la socdo wararkii ugu dambeeyay raaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada marba soo dhawaada saaxiibayaal hadaynu ku bilowno goolkii koobaad ee xalay xulka Boortaqiiska uu dhaliyay ay isku qabsadeen Cristiano Ronaldo iyo Bruno Fernandes weli muran baa ka taagan Ronaldo ayaa arrinkii weli ku doodaya waxa uu taagan yahay inkastoo kulan markuu soo dhamaaday saxaafadda ay wareysanaysa uu sheegay in goolkaasi uu dhaliyay madaxiisa oo taabtay weli goolkii muran baa ka taagan muxuu ka yiraahday Bruno Fernandes arrinkaas Bruno waxuu dhanka Ronaldo ayuu goolka u riixaya waxuu taagan yahay markii aan dabaaldigi sidii Ronaldo inuu goolka u dhaliyay laakiin sirwadayaasha ayaa arrinkani go'aan ka gaaray waxaana loo qoray labadii gool ee xalay xulka Boortaqiiska ay dhaliyeenba Bruno Fernandes arrinkan lagama hadli karo laakiin weli dooda taagan Ronaldo waa ku doodaya waxuu taagan yahayba aniga madaxayga waa taabatay oo ilaa kulankii dhamaadkii waa ku doodaya xiriirka Boortaqiiska ay waxay qorsheynayaan in FIFA ay horkeemaan cadeymo muujinay in goolkii ugu horeeyay ee Uruguay uu dhaliyay Cristiano Ronaldo xiriirkii waxa taas soo dhaxgalo Ronaldo ayuu doodayaan laakiin inaan loo qorin waxa ku cadeynaysa weli in waa isku gool Ronaldo iyo weli Messi weli goolkii xalay looma diiwaan gelin hadooda laakiin Bruno Fernandes ayaa labadani gool loo qoray runtii xulka Boortaqiisku wada adag ama dhaba adag ayuu soo maray runtii marba jirtay oo koobka adduunka u qirinqiir inuu ugu jiray inuu ka haro marba ogeyn uu soo galay knock out oo runtii uu wada aan la filin maanta in labada kulan ugu horeeyayba uu isku xaadin wareeg 16 uu tago lama filin markii uu knock out ka soo galay xulkani qirinqiirka ugu jiray koob adduunka uu ka haray runtii kulankii ugu dambeeyay Macedonia ay la lahaayeen kulan sirreeba oo nagawda labadii gool ay ku soo baxeen waxa uu dhaliyay xulkani Bruno Fernandes oo soo saaray koobka adduunka wadankiisa Boortaqiiska xalayna markale ayuu madaxa saartay oo labada gool ay u dhaliyay Bruno Fernandes ayuu xulkani Boortaqiisku uu ka xaqiijiyay wareegga 16 oo labadii kulan ugu horeeyay ciyaareenba waxay hadda siyaasi ku joogaan wareegga 16 oo ay sii fadhiyaan kaliya waxay sugaan waxa weeye xulalka ilaa maanta ilaa bari wixii ka dambeeya soo bixi doona ee wareegga saddexaad ku soo kala bixi doona laakiin wadankii qirinqiirka ugu jiray ee nagoodka soo galay oo maanta haddana labadii kulan 16 joog wala marba jirtay Boortaqiisku uu qirinqiir ugu jiray koob adduunka shakiba la gelinay in gabi ahaanba oo koobkani garo haddana oo xulka awoodda muujiyay guruubida labadii kulan ba soo adkaaday ee hadda figta sirri jooga waana saddex xulo kaliya Faransiiska Brazil iyo waliba Boortaqiiska waana saddexda wadan imika loo saadaalinaya waa kuwa ugu cadcad kadib marka la arkay qaab ciyaareedka iyo waxyaabaha ay soo bandhigeen xulka Belgiumka ayaa runtii khilaaf soo kala dhaxgalay xidigihii dahabiga ah xulkan Belgiumka ay fursadoodii ugu dambeeyay koobadoon iska luminaya kadib isqabsi iyo waliba khilaaf soo kala dhaxgalay xulkan Belgiumka waa xulka qiimeyn kasta xag hore ka jira imika waxa ku jira qiimeynta FIFA kaalinta labaad buu ka jira waxaad moodaaba in imikana fursadoodii ugu dambeeyay jiilkan dahabigi ay isku luminayaan runtii doodadu waa sii weynaanaysa wixii ka dambeeya fursadoodii qirinqiir ay sii galaysaa imikana waxa soo kala dhaxgalayba isku dhac ku yimaaday xidigaha qolka labiska oo muran oo kala dhaxgalay runtii waxa imika xulka Belgiumka oo khilaaf ka dhaxay xidigaha Vertonghen iyo waliba De Bruyne iyo Hazard saddexdaas xidig ayaa imika isku haya oo runtii waliba dagaal aan qarsoonayn oo runtii muuqda
xidiga De Bruyne ayaa kulankii hore gool eberka guusha dirqiga ay ka gaadheen Canada. saxaafantii intuu la hadlay ayaa waxa uu sheegay in xulkiisa aan loo damaanad qaadi karin koob adduunka. wuxuu leeyahay sanadba sanadka dambeysa waanu sii weynaanina, sanadkan uma malayno in koob adduunka aan ku guuleysanino. kulankii dambe ee Morocco ay garaacaysa ayaa waxaa hadlay xidiga daafaca ee Vertonghen ayaa waxa uu leeyahay malaha sanadkan weerar ma qaadi karno oo weerarkeega daciifo waan sii weynaanay. waxa uu ka cadhaysan yahay falkii De Bruyne ku kacay kulankii hore, arrinkan ayaana khilaaf kala abuurtay. kulanka horena waxaa la arkayay De Bruyne iyo ninkan oo is afdhaafaya. Hazard ayaa kusoo biray oo qolka labiska Belgium khilaaf ayaa kala dhex taagan, laakiin waxaa leeyahay waxaa dhexdhexaadin kala dhex galay oo odeeyay Lukaku oo falkan isku dayay inuu dhexdhexaadiyo. runtii khilaaf kasoo kala dhex galay kulankooda imika ku hareen hadii kulankan amba barbara galan amba laga badiyo runtii waa ku daayeen xulkani. marka waxay u baahan yihiin kulankan ay la leeyihiin Croatia. xulkani sidii u badbaadiyay fursadiisa ugu dambeeyay koob adduunka inuu guuleysto. runtii Croatia iyo Belgium kulankan waa isku go'i doonaan. waa guruubyada aan weli loo kala bixin, wakaasi welina waxay ku jiraan khilaaf iyo weliba isqabqabsi. runtii waxaa aad loo hadal hayaa oo leeyahayba sanadkan waxaa macquulaba inaan aragno saaxiibadii hore ee kooxda Barcelona oo hadda hal koox ku midoobi doona. waa Suarez, Sergio Busquets iyo Lionel Messi oo saddexdooduba aad la xirinayo in Inter Miami ay aadi karayaan. isaga Sergio Busquets mar hore ayaa bu xaqiijiyay in Inter Miami oo ciyaareedka soo socda uu ka ciyaari doono. Messi-na xamxamtiisa iyo weliba way socdaa in loo saadaalinayo Inter Miami inuu tegi karayo. weliba David Beckham aad ayuu xiiseynayay Lionel Messi inuu imaado, waxaana loo ballan qaadayba in noqon doono ninkii ugu mushaarka badan MLS-ka. sidoo kale Suarez kooxdii National ay u tegeen qandaraaskiisa waa soo dhamaaday, hadeer waa bilaa koox, laga yaabay Inter Miami uu tegi karo. raggani ayaa imika aad loo saadaalinayaa in ay ku midoobi karaan kooxdan Inter Miami iyo horyaalka MLS-ka. waa saaxiibadii hore ee kooxda Barcelona, halkan ma ku kulmi karaan. waxaa aad loo saadaalinayaa inay bartan ku kulmi karaan saddexda ciyaartoy oo ay ku wada midoobi karaan kooxdani. runtii Chelsea iyo Man United ayaa suuq aad ugu jira oo ka muuqda. waxaana la filayaa January in isbedelo waaweyn iyo xidiga waaweyn horyaalka Premier League ay kusoo biiri karaan. runtii loolanka horyaalku weli waa socdaa, waa la isku hayaa. January-na waa la isqalabaynayaa. koox kastaaba dhankeeda waa soo hubeynaysaa. Chelsea waxaa leeyahay waxay ku dhowdahay heshiis ka badan 60 milyan inay kula soo wareegto xidiga RB Leipzig Nkunku. xidigani Faransiiska dhaawac looga saaray, xulkiisa dhaawac jirib ka soo gaaray Kusegia waxaa lagu soo waramayaa in Chelsea ay hadeer qarka u saaran tahay in 60 milyan ee ka badan ay kula wareegi karto ninkan Nkunku. ku darso oo baryahanba Chelsea ninkan waa diidaysi oo waa la xirinaya oo waa doonaysi. ugu dambeynna waxay doonaysaa January in warkan ninkan ay soo gabagabayso oo ninkan heshiis ay la gaadho waliba 60 milyan heshiis ka badan ayaa wala saadaalinayaa Chelsea ay kula wareegi karto waryaanka reference ee Nkunku. Chelsea waxaa lagu soo waramayay in Pulisic ay ku fasaxi karto amaah. waliba waxaa aad la xidhnaya kooxda Man United in January ay ninkan reer USA ay amaah ku qaadan karaan. Chelsea ayaa waxay sheegtay in ninkan aanay u socon in January ay amaah ay ku fasaxdo. waxaa leeyahay Chelsea ma rabto in January amaah kaga baxo Pulisic. markaasi waxaa in xariga loo jarayaa in wararka jiraya Pulisic ay Man United ay amaah ay kula wareegi karto January. wataasi Chelsea ma rabto in ninkan amaah kaga baxo in January. Man United waxaa lagu wargeliyay inay bixiso 100 milyan haddii doonayso saxiixidiga khadka dhexe reer Benfica Enzo Fernandez, ninka reer Argentine oo Man United ay lala xidhnayay 100 milyan balay miiska saar, haddii kale wax wada hadal ma jiro. si ninkan khadkan dhexe saxiixiisa aad u heshaan reer Argentine, Man United waa inay bixisaan 100 milyan haddii aad bixin Enzo Fernandez heli meysaan ayay ka dhigan tahay. 100 milyan ayaa ninkan lagu heli karaa khadka dhexe oo Man United ay ku heli karaysaa. wararkeena ciyaaruhu waa naga intaas saaxiibayaal, intaynu ku kulmi doono wararkeena kale. wassalaamu calaykum.